dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbiyeen qoraal ashkata ah oo ka dhan Afrigelin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo aan ka mid ahayn Amisom ay ka wadaan gobolka Gado qoraalka oo loo diray wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan kuna saxiixan yahay wasiiru dawladda madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac ayaa lagu sheegay in Itoobiya xadgudub ay ka sameysay deegaano ka tirsan gobolka Gado waxa warqada lagu sheegay in ciidamo Itoobiyaan ay qafaasheen gudoomiyaasha saddex ka mid ah degmooyinka gobolka Gado sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dawladda Itoobiya ay doonayso in gobolka Gado in uu ku dhawaaqo in uu ka go'ay maamulka Jubbaland taasina ay mas'uul ka tahay dawladda federaalka Jubbaland waxay sidoo kale sheegtay in Itoobiya ay isku dayayso in dhammaan taliska ciidamada ammaanka Jubbaland ee gobolka Gado ay ku wareejiso dawladda federaalka Jubbaland ayaa ka digtay cawaaqib xumo ka dhalin karta haddii uu hirgalo qorshaha ay wado Itoobiya وياسر عبد الله يسرشكا codka bariga Afrika si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka